waxaan rabaa inaan wax yar oo qeexitaan aan ka bixiyo raabita madaaris Minnesota hay-adan ay ku kulmeen ama ay isugu yimaadeen ama dallada midaysa dugsiyada ama madaarista Minnesota waxaan rabaa insha Allah taala inaan marka koowaad wax yar ka iraahdo qaabkay u aasaasantay iyo baahida keentay inaan madaarista midayno oo aan isu keenno oo hal madallo ama hal hay-ad oo madaarista maamusha oo hal meel iyo hal maamul aan u samayno inaan marka hore baahida keentay aan wax yar ka taabtaan rabaa insha Allah taala kabacdina haddii alla idmo waxaan rabaa inaan ku xijiyo madaarista ku midowday dallada tan oo isugu timid magacyadooda ayaan rabaa inaan ku xijiyo haddii alla idmo kabacdi waxaan rabaa inaan ku xijiyo insha Allah taala waxa aan higsanayno iyo waxa goolkayga iyo qaayadaydu ay tahay aan damacsannahay ilaahay aan ka rajaynayno subxaanahu wa tacaala inuu na gaarsiiyo nalana garab qabto oo midnimadayada keentay ayaan waxaan rabaa insha Allah taala الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئاتنا أعمالنا من يهد الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. All praise is due to Allah. We praise Him and seek forgiveness from our bad deeds and our inner desires. May the peace and blessing of Allah be upon our Prophet, his family, and his companions. To what follows after that, I would like to inform my dear brothers and sisters of the punishment for abandoning Salah in the afterlife and the dunya. But first, Allah says in the Quran, مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. Allah subhanahu wa ta'ala also says, وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. He says, And remember on that day when the wrongdoer will bite both of his hands, regretting and saying, oh, I should have taken the path of the messenger. Oh, why did I should have taken so and so as a friend. He indeed led me astray from the Quran, the dhikr of Allah, after it came to me. And Allah subhanahu wa ta'ala ends the ayah by saying, وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On this brief talk, I would like to shed some light on one of the names of the Quran. And that name is dhikr. Dhikr in English interpretation is reminder. The Quran serves as a reminder in various ways. Because of the time limit, I would like to mention just 2 ways the Quran can serve us as a reminder. First and foremost, as human beings, we tend to always focus on our problems. Everyone complains about what's going on wrong with their lives. Friends are always talking about what's going wrong with other friends. And people are always talking about what's going on wrong with the world. Well, the Quran teaches us a different way to look at life. While talking to Musa alayhi salam in regards to dealing with Banu Israel, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Ibrahim, ayat 5, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ سَبَّارٍ شَكُورٍ. walaalaha muslimiinta dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib aniga waxaan ka hadlayaa qayb ka mid ah qur'aanka fadligiisa iyo qiimihiisa. qur'aanka walaalayaal waa kitaabkii alla uu soo dejiyay in adduunkan lagu maamulo, la rumeeyo, laguna dhaqmo. ogow walaalka muslimka ah walaasha muslimada ahayd qofkii qur'aanka ku dhaqmo wuxuu ku hanuuninayaa jidka toosan ee xaqa ah. Allah subhanahu ta'ala qur'aanka wuxuu ku yiri inna hadha al-qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshiru al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. qur'aanka wuxuu ku hanuuninayaa qofka raaco jidka ugu toosan. wuxuu ugu bishaareynaa mu'miniinta kuwa camalka wanaagsan sameeyay in ay leeyihiin ajar aad u weyn. walaalayaal qur'aanka waa cilmi. qur'aanka dadka bartayna waa culimo. alla aayad kale wuxuu ku yiri ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. kitaabka waxaan dhacal siinaynaa kuwii aan dooranay ee addoommadeena ka mid ahaa. wuxuu kaloo yidhi
بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم قرآنك وآيات عد oo laabta ugu jiro kuwii cilmiga la siiyay nolol qofka ku dankiisa iyo rumayntiisa ka jeesto wuxuu ku noolaanayaa cariiri iyo ciqaab Allah wuxuu yiri waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka qofka ka jeesto quraanka ku dhaqankiisa iyo rumayntiisa wuxuu leeyahay nolol cariiri ah intaas kaliya ma ahan wuxuu qaadayaa dambi aad u weyn Allah wuxuu yiri man a'rada anhu fa innahu yahmilu yawm al-qiyamati wizra ruuxi ka jeesto quraanka ku dhaqankiisa iyo rumayntiisa wuxuu xambaarayaa culus aad u weyn يعني dambi aad u weyn maalinta yawm al-qiyamah فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليكم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. O Prophet, tell your wives and your daughters and the women of believers to draw their clocks over their bodies when outdoors. That is most convenient and that they should be known and not molested. In another ayah, Allah says, وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ. And when you ask the Prophet's wives for anything you want, ask them from behind a screen. Number 2, the hijab is dahara. كيما تزيله وما للذي لا يعرف اللحن من عذري. To my brothers in faith, my sisters in Aqidah, we are proud and we are delighted and thankful to Almighty Allah who show us this blessed gathering, the gathering of Afadatu Kitabillah. Quraanka Ilaahi kalaamkiisii dhameeyay subxaanahu wa ta'ala iyagoo jooga dhulka qurbaha ah wax ugu kaalmayna aysan jirin ilaa dadka culimada iyo macallimiintooda iyo waalidiinta ma ahe marka runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay ilaahayna ugu mahadinaya subxaanahu wa ta'ala waxaan aad iyo aad ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu ka jazeeyo aan ilaahay weydiisanayna subxaanahu wa ta'ala ilaahay ku xifdin lahaa subxaanahu wa ta'ala waalidiinta waxaan leeyahay dadaalka wada ilaahayna waa idinku badbaadinaya ilaahayna ilmihiina waa idin badbaadinaya
إلهي وحويدي سينا سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة إلهي وحويدي سينا سبحانه وتعالى إلمها إنه صالحين وقدقه. اللهم أصلح ذريتنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح ذريتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إلهي وحويدي سينا سبحانه إلمها سينو إلهي علومك كدقه إلهي إنو صالحين كدقه إلهي كوي دين تحمبار لها إنو كدقه سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى إنو نودن بدافه إلهي سبحانه وتعالى إنو نون حريسته بفضله ومنه. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.